بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan doonaynaa ku duuba tixgab ayo gaaban oo ka hadlaysa xusbiga kulmiye iyo dawladdiisa maanta xukunta dalkii Soomaaliland waa tixgaban laakiin macno weyn bay xambaarsan tahay ku soo dhawaada dhageystayaal ama akhristayaal saaxiib dalkeenii haddaan xogay yar ka siiyo warka beledkii laga soo diray siduu noo keenay kulmiyaba sidii codad ka badan sebankii loo siiyey dalkii taladii saran seertayo seegtay marinkii duq sagaashan jiray baa shacbiga seejay marinkii softaran habow iyo kuwani silic bay keeneen sunudurursayo iyagu la yimi suruucyo waaweyne seesaskii qaranka iyo wada xaraash sarihii taagnaaye Somaliland tiisinayd kala sarraysiye Soomaali weyn bay midnimo wada saxeexdene soliyo sana kala barbaan saarin calankiye suldaan wabar wakaaburihi safay raagiisiye bulshadiisa lagu dhex dhigay suubanayd abide saxaafadii xabsiga kama baxaan soo warrami laayee dadkii sayn caddaa iyo magamo sabi carruureedee sakda dhexe ayaa xaafadaha seleelka yeedhaayee sabool meelu joogaba dhulkii waa surmiyayaane las qoray lahaa saaxil iyo awdal iyo saylac 30 dhagax ka badan baa la dhigay safarkii dheeraaye saylayo wuxuu magan yahay sahanku noo sheegiye marha horaa sasabadii shacbigu duqa ku surreene saatanbana muxuu odhan hadeer hele sirtiisiiye warka beledkii laga soo diraye siduu keenay sese kulmiyo baryahan wayse suudaan yiine in Soomaali raacdiyo la noqoy qayb silaanyo ahee saraakiishii may quusan weli soomanka ahayee sidii bay biyi ugu sitaan weli sibraarkiye sidigta irmaan iyo hashii siraw ma malane 5 sanay surwaal gaab yaryari kaga seetroonayde camalkiisi yaad lagu bartay sare u dhaafene sayd baabay dheertiyo wadaad siray dadkiisiye sifihii rag hore lagu dabaa sidii loo tumaye udubtiisin saaradu ku dilay waa la sugayaye wuxuu soo gurgurtaba nafsigii saaka soo dhigaye mar hadduu la baxo seefta culus saamaxaad ma lehe mar haddaad suldaarada taqaan waa ku sababtaye suuxulada wakaa dhigay kulmiye meel sibiibixae bal sabaxada suga ragba siiban malmaane dhegeysi wanaagsan oo ka hadlaysa xusbiga kulmiye iyo dawladdiisa maanta xukunta dalkii Soomaaliland waa tixgaaban laakiin macno weyn bay xambaarsan tahay ku soo dhawaada dhageystayaal ama akhristayaal saaxiib dalkeenii haddaan xogay yar ka siiyo warka beledkii laga soo diray siduu noo keenay kulmiyaba sidii codad ka badan sebankii loo siiyey dalkii taladii saran seertayo seegtay marinkii duq sagaashan jiray baa shacbiga seejay marinkii softaran habow iyo kuwani silic bay keeneen sunudurursayo iyagu la yimi suruucyo waaweyne seesaskii qaranka iyo wada xaraash
sarihii taagnaaye somalilan tiisinayd kala sarraysiiye soomaali weyn bay midnimo wada saxeexdene sol iyo sanaa kala barbaan saarin calankiye suldaan wabar wakaaburihii safay raagiisiiye bulshadiisa lug buu dhex dhigay suubanayd abidee saxaafadii xabsiga kama baxaan soo warrami laayee dadkii sayn caddaa iyo magamo sabi carruureedee sakda dhexe ayaa xaafadaha seleelkaa yeedhaayee sabool meeluu joogaba dhulkii waa surmiyayaanee las qoray ilaa saaxil iyo awdal iyo saylac 30 dhagax ka badan baa la dhigay safarkii dheeraaye saylayo wuxuu magan yahay sahanku noo sheegiye marha horaa sasabadii shacbigu duqa kuu soreene saatanbana muxuu odhan hadeer hele sirtiisiiye warka beledkii laga soo diraye siduu keenay sesee kulmiye oo beryahan wayse suudhaan yiine in samaale raacdiyo la noqoy qayb saylaanyo ahee saraakiishii may quusan weli soomanka ahaayee sidii bay biyii ugu sitaan weli sibraarkiye sidigtaa irmaan iyo hashii sira uma malaanee 5 sanay surwaal gaab yaryari kaga seetroonaydee camalkiisiyaad lagu bartay sare u dhaafeenee saayid baabay dheertiyo wadaad siray dadkiisiiye sifihii rag hore lagu dabaa sidhi loo tumayee udubtii sinsaaradu ku dilay waa la sugayaye wuxuu soo gurgurtaba nabsigii saaka soo dhigaye mar hadduu la baxo seefta culus saamaxaad ma lehe mar haddaad suldaarada taqaan waa ku sababtaye suuxullada wakaa dhigay kulmiye meel sibiibixae bal sabaaxadaa suga ragba siiban malmaane dhegeysi wanaagsan